بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waxa la dhahaa Cabdullaahi Cabdiraxmaan Gardaad. waxaan ahay arday ka mid ah Jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ama medicine-ka. sidoo kale waxaan ahay qoraaga buugga la yiraahdo barasho iyo barbaarin. buugga barasho iyo barbaarin oo aan isbuucan ku soo bandhignay magaalada Gaalkacyo. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka hadlo sababta ay ugu kalaftay inaan buugga qoro. runtii markaan arkay khaladaad fara badan oo haysta ama ka jira jaanibka barbaarinta iyo in dadka Soomaaliyeed ay ku yar tahay bulshada wax qorta oo arinta ka hadasha ama wacyiga ay ka haystaan barbaarinta inuusan ahayn kii saxda ah ee waafaqsanaa sharciga Islaamka ama diinta Islaamka ayaa waxaan go'aansaday inaan buuggan qoro. sidoo kale qiso yar oo waxa saas oo kale jirtay ugu kalaftay ama igu sii riixday inaan buuggan qoro. inta badan waxaan ahaa dadka aad u fiirfiiriya carruurta yararka iyo qaabka loola dhaqmo. habeenada ka mid ah ayaan masjid anoo si u dhaliilsana qaabkay ula dhaqmayaan carruurta masjidka timaada ayaan iyadoo salaada taraawiixda kadib baan ka istaagay. kadibna waxaan baraarujiyay inay sax ahayn sida carruurta loola dhaqmo. arintaas kadib markii dadkii tukanayay dad ka mid ah ama laba qof oo dadkii tukanayay ka mid ah ayaa yimid waxay iga codsadeen inaan u heli karo ama buugaag ama meel ay ka baran karaan waxaan yiraahdaa tarbiyada wanaagsan ee waafaqsan sharciga Islaamka. buuggan waxa ka faa'iideysan kara waalidiinta iyo dhammaan cid kasta oo wax barbaarinaysa oo ay ugu horeeyaan waalidiinta ay ku jiraan macallimiinta dugsiyada iyo kuwa quraanka intaba buuggan way ka faa'iideysan karaan. runtii dad fara badan oo aanan halkan ku soo koobi karin oo runtii ka qayb qaatay fikradiisana lahaa intuu socdayna waxyaabo badan ku darsaday baa jira. aad ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay abaalkooda gudo. waxaan rabaa wax yar inaan soo koobo buuggu muxuu ka hadlayaa. runtii qofkii akhriyo baa dareemi kara laakiin shan waxyaabood oo waaweyn ayuu buuggu ka hadlayaa. marka cutubka koowaad markii qofku uu buugga akhriyo wuxuu arkayaa waxa la yiraahdo macnaha barbaarin maxay tahay. waxa ugu horeeya waa barbaarin maxay tahay. waxa ku xiga barbaariye ayaa noqonaya qofka barbaariyaha ma qof kasta barbaariyaha mise qofka barbaariyaha waa qof tilmaamo gooniya leh. qodobka labaad waa maxay waa yaa barbaariye noqonaya. qodobka saddexaad buuggan uu ka hadlaya ama uu xambaarsan yahay waxa weeye waxa la yiraahdo qaabkee ama habkee baa wax loo barbaarinaya ama wadooyinkii loo mari lahaa barbaarinta. waxa afraad oo buuggan uu ka hadlaya waxa weeye ilmahan aynu barbaarinayno maxaynu ku barbaarinaynaa. barbaarintu ma aha kaliya cunto ilmaha la siiyo ama kaliya ma aha way ka guda balaarinta inta sida Soomaalidu inta yarta ay kooban ay ka aaminsan tahay kaliya ma barbaarintu inta way ka guda balaaran tahay. dayac fara badan waxa moodaa inuu ka jiro barbaarinta diinta ilmaha in la baro akhlaaqdiisa in xil la iska saaro bulshada dhaqankiisa in la koriyo waxaas oo dhan marka barbaarintu way guda balaarantaa. marka qodobka afraad waxa weeye barbaarintu maxaa ilmaha lagu barbaarinayaa. waxa shanaad ama shayga shanaad ee buuggan uu xambaarsan yahay waxa weeye dhaqamo ama caadooyin lid ku ah barbaarinta wanaagsan oo mujtamaceena ka jira sidee loo xalinayaa sidee loo gudbiyaa. shantaas shay oo waaweyn ayuu buuggan xambaarsan yahay. buuggan waa buuggii ugu horeeyay aan qoro. waxa jiray hore aan u qoray maqaalo way jireen laakiin buuggan wuxuu noqonayaa buuggii ugu horeeyay aan qoro. runtii dhalinyaro fara badan oo hadda waxa jirta wax qorta. waxaan moodaa qoraahdii ahayd Soomaalidu wax ma akhriso wax ma qorto inay hadda laga sii baxayo. waa wax fiican in wax la qoro waxna la akhriyo si bulshadana horumar u gaarto. dhalinyaradaas wax qorta waxaan u soo jeedin lahaa cilmigu sidiisaba qofku marka uu dugsi hoose ka bilaabo ilaa iyo dugsi sare ilaa iyo jaamacad inta asaga wax aruurinaya waa in la gaaraa marka xilliga cilmiga la baahin lahaa waa in la gaaraa xilliga wax la qori lahaa waa in la gaaraa xilliga research la sameyn lahaa horumar sideen bulshada u gaadho. waxaan marka kula dardaarmi lahaa dhalinyarada wax qorta in ay bulshadu meelaha ay baahida uga qabto inay wax ka qoraan sida barbaarinta oo kale. barbaarintu waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka weyn ay ka jiraan waana wax runtii maanta saameynteeda ay ka jirto waxa weyn haysato marka aragtay dhalinyaro yar yar oo carruurteena ka mid ah oo dariiqada taagan oo dadka baaranaya oo dadkii inaga mid ah dilaya waxa ku tusinaysaa barbaarin xumada meesha marayso. marka dhalinyarada wax qorta waxaan u soo jeedin lahaa inay meelaha baahidu ka jirto inay aad xoog u saaraan. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa
dhammaan warbaahinta gaar ahaan Halmal Media oo runtii madal isu xilqaantay inay dadka figureska ama dadka aqoon-yahanka ama dadka waxaan leeyahay risaalada xambaarsan ama fariimaha xambaarsan sidii bulshadooda ula wadaagi lahaayeen runtii halkaas gaab weyn baa ka jiray anigoo tusaale shakhsi aqoon leh wax fahansan inaan dadkayga wax u sheego waa inaan helaa wadadii aan u mari lahaa waxa moodaa in kaalintaas ay Halmal Media hadda soo buuxisay iyo dadka la midka ah walaalaha iyo runtii dadaalaya waxaan u rajeynayaa dadaal iyo inay halka ka sii wadaan bulshaduna markaas ay horumar gaari karaan markii qoloba meesheeda ay xoog ka wado maartay dadaalka wado aad u mahadsan yihiin